Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan waddanka Holland oo soo xilqaamay ayaa deeq lacageed waxa ay guddoonsiiyeen dad Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan magaalada Amsterdam ee waddanka Holland kuwaasoo laga soo dhigay dibadda kaamkii ay kaga jireen waddanka kadib markii dowladda Holland ay sheegtay in dadkani codsiyadii magangelyanimo ay soo weydiisteen dowladda Holland la diiday ayagoona dadkani ku dhibaataysan magaalada isla markaasna ay degeen guri si ku meel gaar ah ay u jabsadeen Sheekh Yaasiin iyo Sheekh Muuse Cadde oo ka tirsan dadka Soomaalida isla markaasna culimaa u diinka si weyn loogu yaqaano waddanka Holland ayaa waxa ay deeqdani gacanta ka geliyeen dadkan Soomaalida ee dhibaataysan ayagoona wakiil ka ahaa dadkii deeqdani soo aruuriyay Sheekh Yaasiin iyo Sheekh Muuse Cadde ayaa ka warbixiyay dhibaatada dadkani haysata iyo deeqda lacageed ee ay guddoonsiinayaan dadkani الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta waxaan soo booqannaa dadkan walaalaheena oo meeshan joogo oon u dhex galnay dadka walaalahooda ee Soomaaliyeed ee joogo sida degan sida Den Haag iyo Eindhoven iyo Nijmegen saddexdaas meel dadka waxa maanta idin keena oo meesha aan keena aan horta ka soo qaadnay sida rag magacyadooda oo anaan xoogaa anaa xuso iska codsaday xoogaa inay macnaa wixii u garanay waxaa muuse nin la yiraahdo iyo macnaa iyo xundow iyo nin kale oo magaciisa ay ku dareen adiga waxa raggaas ayaa ahaa nin raggii horta waxaan soo guddoonsiiyay ee dadka Den Haag waxa ka soo aruurshay Cabdi Daahir Cabdi Gaax la yiraahdaa Maxamed Muuse Guuleed iyo Cabdalla Xuseen Xundow saddexdaas nin ayaa macnaa waxay adiga soo aruuriyeen ilaa adiga lacag 600 iyo meelahaas oo Den Haag degan marka insha Allah waa kaas ayagana maanta horta dadka xaafadahan ka soo aruurinay dhaheen annagana dadkii wixii sidii ayagan ka soo guddoonay meeshaana keenay iyo rag kale oo Eindhoven degan oo sida yar cawi la yiraahdo iyo Mukhtaar iyo adeer iyo Sheekh Maxamed Saliid ma sha Allah marka waa kaas iyo wadaad macallin Umar Liira oo Nijmegen joogo marka dadkaas aan u mahad celeynaa oo hawshan maanta inta aan soo gaarsiinay wax qabadkeeda leh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin xabiibina wa sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam ilaahay dambigayna ha dhaafo ramadaanka kumanka la xureeyay allah naga dhigo nimankan walaalahayna iyo ahalkayna iyo awlaadayna iyo ilmahayna oo dhibka meeshan joogaan oo ku haystaan ilaahay oo farajsi ilaahu faraj degdeg si ilaahu kuwan sharciga si ilaahu dokumentiga ku dalka ku marayeen si ilaahu u soo dedeji ilaahu gacanta bani aadanka gacanta ugu weyn oo wax ku qabato wax ku si gacantaada ilaahu wax ku si raali ahaashadaada nasi wax yaroon sida Sheekh Yaasiin u sheegay ay magacayna ku soo aruursheen jamaacadayno ayaan keenay waxaana filayaa inay hadda kun tahay wixii la jiraan badnayn kunkaasaan marka hadda u dhiibaynaa guddiga oo waxaa rabaa haddii aanan sheegin inaan sheego waxaa ka fadli badan iska dhaafo laakiin haddaan sheegin guddiga hadhow la dhibaayo guddiga waxaan u dhiibaynaa lacag kun eero iyo wax yaroo sintiyo la jiraa waxaan rabnaa marka siday u gaarayso iyagu inay u qaybsadaan oo kunaan goobjoog ka ahaano insha Allah mawlaana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa baraka Allah ugu dheefo intii soo dhiibatana ajir Allah siiyo sadaqa jaariya Allah ka dhigo muslimiinta Soomaaliya waddanka joogtana waxaan ku boorinaynaa dadkan in la ogaado oo wax la isku soo dardaro oo la isxilqaamo oo walaalka dhaxanta jiifa aan laga jeesanin oo aan isu kaashano islaamnimo iyo walaalnimo hadday ahalnimo jirto dadkan in loo yimaado oo koox loogu yimaado wax la isku soo darsado heerkii wax noo keenay waa uga keenaynaa anagu ka qayaanimayna ilaa idankiisa marka guddigana waxaan baasantihiin idaacadahuna anaguna waxaan diibayaa guddoomiyaha oo Fuaad oo mataqaanaa jamaacada dadkii deeqda la guddoonsiiyay ee dhibaatada ku haysata magaalada Amsterdam isla markaasna wax sharci deganaanshaha aysan ka haysanin waddankani ayaa waxa ay ka mahad celiyeen deeqda ay walaalahooda u keeneen waxaana sheegeen in aad ugu faraxsan yihiin in ay soo garab galaan isla markaasna ay ka damqadaan dhibaatada ku haysato
waddankani Holland waxayna sheegeen dadkani in ay rajaynayaan in Soomaalida kale ee ku nool waddankani in deeq tan la mid ah ay u keeni doonaan inta xaalku sidaan uu iska bedelayo. wadada maasha Allah waa aad u mahadsan yihiin maadaama ay walaalahana soo booqdeen wax garad ay noo garteen waxa ay noo keenaan aad iyo aad ugu mahad celinayna waana ku mahadsan maadaama ay noo yimaadeen dadkii ugu horeeyay hadda halka noogu yimaado inta aniga 2 sano hadda barnaamijkan ku jirnay barnaamijka ee waa dadkii ugu horeeyay noo yimaado waana aad ugu mahad celinayna walaalahii wixii noogu soo talagalay waa na soo gaaray maasha Allah alxamdulillah ilaahay ma taqaana sadaqa wixii ma taqaana dileelada walaalahii inay dadkan dhibaataysan u soo garteen waa na soo gaartay maasha Allah ilaahay ma taqaana meesha ay ka soo qaadeen wax ka khayr badan ilaahay ugu bedel insha Allah taala sidii micnaha loo rabana dadka waa u soo gaartay anaka meeshan Soomaali iyo intaas oo ajaariman ku nahay dadku waa badan yihiin intaas oo sana wadanka dadku ay joogan ay ku dhibaataysan yihiin aniga had deertan in la hadlaaya 3 sano muddo aan wadankan jooga 4 sano 4 bilood bisan kam ku jiro inta kala banaankan ku noolaa waa ku mahadsantiin sheekhayaha noo booqashada maanta noo keenay marka dad kale dhiman waxaan rabnaa inay ku dawatistaano insha Allah ay ogaadaano farasta waawan musaacadiyaano imaadeen iyo shiya yaasiin marka dad kale dhiman waxaan rabnaa inay ku dawatistaano ayna arkaano dad walaalahoodaanaane waana ku mahadsantiin dadkan soo gaara Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajirow telefishinka qaranka magaalada Amsterdam waddanka Holland.